dhalinyaradan ayaa si iskooda isu abaabushay waxayna ka dhidhiyeen beegsiga joogtada ah ee lagula kaco dadka waxgalku ah bulshada oo ay dhalinyarada hormuudka ka yihiin aad bayna shucuurtooda u sareysay isu soo baxan waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Banaadir iyo isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho dhalinyaro badan ayaa ka dhex muuqatay oo madaxa ku soo xirtay marooyin cad oo loogu baroordiiqayay Maxamed Sheekh Cali oo dhawaan lagu dilay wadada ay isu soo baxeen waxayna adeegsanayeen erayo ay ka mid yihiin waxaan u baahanahay cadaalad dhab ah maxaa loo dilaa dhalinyarada askarta darwalada bajaadka iyo cid walba oo aan waxba galabsan beegsiga dhalinyaradan oo laga hortaga waxay u baahan tahay amni iyo cadaalad sida lagu muujiyay qeyladaan wadajir ah bayaan ka soo baxay dhalinyaradaasi waxa akhriyay Shucayb Cabdullaahi dhalinyarada waxaa ka go'an qodobada hoos ku xusan kow in la helo cadaalad gaarta muwaadin kasta oo Soomaali ah oo ay ugu horeyso in cadaaladda la soo taago ciddii ka dambaysay dilkii walaalkeen Maxamed Sheekh Cali Allah u naxariistay labo in la helo isla xisaabtan dhab ah oo u dhaxeeya shacabka iyo dawladda gaar ahaan hay'adaha ammaanka oo ka bilaabanaysa isla xisaabtanka walaalkeen Maxamed Sheekh Cali oo aan jawaab degdeg ah ku doonayno saddex in la helo dhalinyaro u taagan samata bixinta dalka oo aan u taagnayn dabargoynta jiilka cusub iyo rajada Soomaaliyeed baaqa gunaanudkiisa wuxuu leeyahay sidatan waxaa hubaala in dhacdooyinka noocan oo kale ah ay mideynayaan awoodda dhalinyarada isla xisaabtanka isxilqaanka iyo wax ka wada qabashada xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira siiba helista ammaan la isku halayn karo iyo cadaalad loo siman yahay Ayub Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada golaha aqalka sare waxa uu codkiisa ku beeriyay in meel looga soo wada jeesto dilalka dhalinyarada iyo cid walba oo xaqdaro lagu dilo reer Muqdisho waxaan leeyahay maalin walba waxa hortiina lagu laayaa maalin walba waxa hortiina qabuuraha loo qaadaa dadkiina indhaha ahaa dadkii idinkugu aqoonta iyo aqliga iyo maskaxda badnaa ee dalkan ugu talagalay inay wax un ka bedelaan kii enerjigiisa maskaxdiisa iyo cilmigiisa geliyay inuu wax soo kordhiyo haddii maalin walba la dilo aan fiirsano waxna qabanaysa ma ahan waxaan mar kale cod dheer ku celinayaa laamaha ammaanka cadaaladda hay'adaha amniga oo madaxda qaranka u horeyso inay baaqan sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan dhalinyaradan isku soo baxday waxay muujiyeen isku soo baxoodana uu astaan u yahay sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay u mideysan yihiin dilalka dulmiga ee lagu dabargoonayo Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise gudoomiyaha degmada Hodan waxa uu taageeray in dhalinyaradu ay noqdaan kuwo isku duuban oo nabadda dhalinta dalka hormuud ka noqotay waxaan iskugu imaanay inaan ka dhiidhino ama aan ka hadalno dilka bulshada Soomaaliyeed maalin walba loo geysanayo oo ugu dambeeyay walaalkeen Maxamed Sheekh waxaan rabnaa in arrintan aan joogtayno waxaan rabnaa inaan kooxahan caadaystay daadinta dhiigga dadka walaalaha ama dadka muslimiinta Soomaaliyeed in aan meel uga soo wada jeesano waxaa la gaaray waqtiga aan la xisaabtami lahayn ka dhalinyaro ahaan waxaan rabnaa inaan si wada jir ula dirirno halkaana waxaan uga tacsiinaynaa walaalkeen Maxamed Sheekh dhalinyaradan waxa ay dalbanayaan in madaxda sare ee dalka hay'adaha amniga ay ku amraan sidii jawaab looga bixin lahaa dilalka lagu beegsanayo dhalinyarada ee ugu dambeysay Maxamed Sheekh Cali oo ahaa wiil fikrad iyo hal abuur ku soo kordhiyay caasimadda khamiistii la soo dhaafay ayaana si xaqdaro loogu toogtay magaalada Muqdisho taas waa xanuun kale oo weli dhalinyarada ku dhacda ku dhawaad sanad kadib qarxii 14 Oktoobar oo dareenka shacabka mideeyay Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho